jira marka warqadaha waalidiinta mawlidu adiguna waxa tahay nin media ah oo dad badan oo followers leh warqadaha dhalashada ee ilmahaas waalidiintu waa inay xafidaan waxaan la kulmay qaar ay ka dhumeen they might be in trouble runta taas weeye waana maasintiin waxay raallahu cabdi muuse halkaas qofka Royal Free Hospital ku dhashay ilmihiisa ku dhasheen oo inuu UK ku dhashay cadeynayso maxaa halkaas noo kala cadee warqadu xafidaya maxaa weeyaan walaalkay warqadiisa dhalashada waxa ku qoran waalidiintiis meesha ay ku dhasheen magacyada ku qoran labadiisa waalid iyo meesha ku dhasheen baa ku qoran way dhici kartaa sida safiirku waa mention gareeyay dad aan isku magac u wada ahayn oo isugu qornayn oo magaca waalidiinta ay kala duwan yihiin sanad kala duwan way dhici kartaa that might be trouble hadana way dhici kartaa laakiin inta badan warqadda dhalashada ilmaha waxa ku qoran labadiisa waalid iyo dhalashadooda meesha ku dhasheen therefore labada waalid waxay cadeynayaan Soomaaliya ku dhasheen therefore was Somali descent aad baad u mahadsantahay runtii shaqo fiican baad qabateen oo adiga iyo ambassadorka idinku mahadcelinaynaa inaad safaarad xilligan la furay hawl adag way runtii dadka Soomaali laftigooda ugu yaraan in appreciation la sameeyaa horta bal safaaradan raggan hadda hawshan wada iyo gabdhaha hawshan wada inkastoo hadda anigu aan weli tegin laakiin aan ballansanahay ambassadorka iyo akhyaartan oo dhan laakiin haddana ugu yaraan in safaarad noo furan tahay 3 sano kadib waa wax fiican marka shaqo fiican baad qabatay laakiin in su'aalaha la idinku kululeeyo u dulqaata ambassador iyo Cabdi Muuse waa maasantiin Leyla oo ku siinaya maasantahay buulida aniga waa u joognaa meeshaas waa caadi waaye Cabdi Muuse waa maasanyahay waa ku imaanaya ambassador Leyla oo ku imaanaya walaashay Cabdullahna oo ku imaanaya Cabsalan guule soo dhow walaalkay aad baan inii salaamaya dhamaantiin mawlid iyo HBN iyo ambassadorka iyo consulka iyo martida kale meesha joogta laba su'aalood baan qabaa su'aasheedu koobaad waxay tahay caqabadan dadka Soomaalida ah soo safraya Soomaaliya u soo socdo ma kuwa Ingiriiska ka soo baxaya bisay haysataa mase kuwa Scandinavia-da iyo European-ka kale ka imaanayo Mareykanka imaanayana caqabadan way haysataa oo way qusaysaa waa su'aasha labaad waxay tahay maxay ma wax diyaaradda Qatar Airways qusaysa bisa mase diyaaradaha kale oo Soomaaliya dadka u soo qaada qosada Imaaraadka kale waa dadku way soo maraan Kenya kale dadku way maraan Ethiopia kale toos ay u soo baxdaa u soo martaa ma wax diyaaradahaas ma qusayaan mase wax Qatar Airways bis qusay wax dadka Ingiriiska soo baxaa bis qusaya mase waa wax Soomaalida wadamada kale oo dhan ka soo baxaysa qusay hadday noqoto wax Qatar iyo Ingiriiska dawladda Ingiriiska wadanka Ingiriiska leeyahay ka jira waa wax safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay isleeyahay sababtoo ah sabab kale ma jiri kartaba waa maasantii Cabsana aad u mahadsantahay waqti aan ku talagalnay waa si dhaafay barnaamijkan wax runtii waxaad moodaa inuu xiiso sii yeelanay dad badan runtii ay soo dalbadeen marka raalli ah oo ambassador haddaan 10 daqiiqo ku sii dhibno soo dhawow waa maasantahay adiga adaa soo dhahay marka adiga raalli gelina aniga ma raalli gelinaysid waa maasan yahay walaalka Cabdisalaamna su'aal fiican waaye arrinta labada su'aalood waxay ahayd midda hore ma wax ku eg dadka Ingiriiska jooga bas aha maya dadka Ingiriiska jooga kuma eka dadka wadamada galbeedka jooga dhan ay saamaysay kayska ugu horreeyay wuxuu ka dhacay Norway dhowr kaysoo kalena way ka dhaceen Scandinavian-ka Ingiriiska uu ka dhacay Dublin uu ka dhacay Ireland walaalka ka soo hadlayay Columbus waxayna u arkaysay dadka raacay Canadian Air waxaa laga soo celiyay Toronto iyagoo transit ku ah Toronto oo soo bixi lahaa Afrika soo aadi lahaa marka cases kaloo fara badan oo waxaa jira iyagana aan social media gelin oo dadka ay gooni noola soo xiriireen iyo waa jiran arrimahaas marka wax ku eg horta Ingiriiska ma aha waa wax systemka marka la fiiriyo ku jira waaye waxaan kaloo og tahay walaalkayo in safaarad aysan gelin karin waxaasoo kale system maba gelin kartaba si kastaba haddii la sameeyo awood uma laha cid kaa yeelaysana ma laha jurisdiction kuma lihin anaga ma xukunno shirkado airlines anaga dowladaan mathalaa iyo shacab wax shaqo aan ku leenahay haba yaraatee shirkad iyo ganacsi maaragtay ma jiro shirkada ganacsi waa shirkad Qatar Airlines maba kaa yeelaysa Qatar Airlinesna kuma eka keligeed saddexda shirkadood oo Soomaaliya toos ku yimaada inta badan
وقطر تركيا iyo Ethiopian saddexdan waa la xiriirtay saddexdaba same thing ay nagu yiraahdeen markaas qatar sababta uu focuska hadda u fuulay waxay ahayd dadka ugu badan tigidhada ayay ka goosteen waxaa lagu raacay convenience-ga price-ka wuxuu rabaa ha noqdo anigaba iyadaa soo raacay markaan may aakhirkeed kasoo baxayay london marka saas daraaddeed nasiibay ahayd markaan aeroboortka tegeyna anagoo iska sheekaysanayna ii sheegeen oo dhan dhibkaasaan haysta markaasaan isu sheega ku yidhi aniga ahba safiirkii gudaha galeen managerkaa liigu yaro tusay systemka waxa ku qoran maaragtay aad igu calacalo yiri waa garan kartaa family 7 qof ka kooban oo halkaa yimid oo soo dhoofay oo celinay dhibkaan kala kulmayna buuq iyo rafaadka maaragtay aan si ay ugu qanciyaan in la yidhahdo familigaas ma bixi kartaan ee laabta marka taasna kuma koobna safaaradna awood uma laha haba yaraatee waxaan jeclaan lahaa arrintaas dadka badan oo waxgaradka oo ku jira qolkan inay ka faa'iidayaan oo dadka kale u faa'iidayaan dhahaan war safaarad intay kacda dhihi karta ma jirto muxuu ahay dadkaas saas ma raaci karaa safaaradda umana baahna safaaraddan ingiriiska suu sheegay mawliid 32 sano xirreyd annagaa waxaan ku furnay lacag aan jeebkayga ka bixinay oo juhdi aan gelinay ilaa hadda one penny ay ku bixisay dowladda soomaaliya safaaradda central london ka furan bishii january ilaa hadda ma jiro lacag annaga aan bixinay jeebkayga ah lacag dadka qaar ayna siinoo dhalinyaro oo dad yar oo kooban ah iyo lacag aan dayn ku qaadan intaasaan ku furnay safaaraddaas way ku socotaa wayna socotaa wayna furan tahay insha allah way furaanaysaa ما شاء الله عادي هذا ما سنتهي وياي ليلى سينيا ليلى سودو ولا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موليد أبو وكاغا محد إلنا فرصة قاليغا هاي سيسي دون جيري هيغانا وان سلاميا آد بانا كاغا محد إلنا نوتمي أورتا هوشن هول أدق ويان imagine hooyo 4 ama 5 caruur ama 6 caruur wadata tigidh ku soo tala gashay soo iibsatay tigidh qaaliya wadankeeda soo socota inay la kulanto arrinkan oo kale horta waxa weeyaan wax aad iyo aad u dhib badan oo dareemi karo haddana tan kale oo hadda walaalkay uu ku dhawaajiyay oo ahayd caruurta waaweyn ee maaragtay 20 jirka soo qaataan waraaqahoodii dhalashada is gonna be embarrassed for them midda kalena waxay ogaataan oo hadda idin sheegay waxa Scandinavia maba haystaanba waraaqahaas aad sheegaysaan maxay ahayd isha qofku 20 jir hadduu 18 hadduu gaaro dee wax weeyaan ado marka warqad isbitaal oo maaragtay dhalashada oo hooyadiis iyo aabihii ku qoran yihiin inuu haddana maaragtay tago oo soo qaato waxa weeyaan waxay noqon doontaa koleyba wax maaragtay in laga fursan karin hadda sidaas sheegaysaan laakiin waxaan jeclaan lahaa waxaad garan kartaan waqtigu inuuna gaaban yahay dadkiina aysan warna iyo wacaalna aysan u haynin meel wax ka information ay ka doontaan aysan jirin inkastoo hadda meediyahu dadku ay maaragtay ay aad ugu baahsan yihiin oo dhageystaan marka waxaan idin dhihi lahaa waxa weeyaan inaad maaragtay koleyba anigu waxaan oran lahaa waxani waa wax dowladda ka yimi maaha wax safaaradda haddaad ku baraarugteen laakiin in maaragtay dowladdu inay maaragtay ay waraaqo u dirto oo maaragtay waxaan sidii lagu dejin lahaa in lagu degdeg ah in lagu xaliyo insha allah aad baan idin salaamaya ليلى waan ku mahadsantahay walaashay fikirkaas aad u mahadsantahay waxaan rabaa nabaashdore adoo raaliya adiga cabdi muusaba safaaradda waan ogahay duruuftiin iyo xaaladiin oo ka warqabnaa laakiin haddii aan anoo maraya jidka safaaradda ku taala arka calankii oo suran safaaradda Soomaaliya ku qoran tahay I feel so proud yani ka Soomaali ahaan runtii qofka Soomaaliya runtii sharaf bay u tahay kamidiyahana waxaan diyaar idin lanahay in aad fariinta hadda walaasheen ay ka dhawaajiso oo dadku baraarujin bay u baahan yihiin wax badan in la gaarsiiyo u baahan yihiin waxa dhici karta qof inuusan weli arkin warqadda notamka ka soo baxday hadda dowladda duulista hawada marka ma ku tala jirta inaad samaysaan media campaign oo aad arrintaas ku tala gashaa in la gaarsiin karo haddaad doonto warbaahinta dowladda isticmaali karta anigu diyaar baa idin nahay xitaa ugu yaraan xitaa website aad samaysaan luuqadda Soomaaliga ku qoran Englishna ku qoran contribution dad u baahatiin diyaar baa una anaga xitaa ka shakhsiyan inta UK degan number 1 baa ka anigu ka HB ahaan xitaa diyaar baa u nahay marka
taa laftigeeda inaad samaysaan oo fariimo aad gudbisaan oo dadkii meel kala soo xiriiro iyo howlaha samaysaan su-aasha kale madaxa ay ku wareegaysaa waxay tahay iga dhalatay halkan anigu safarkay ugu dambeeyay Soomaaliya aan tagay baasboor Algeria loo isticmaalaya fiisa waxaan ka qaatay airportka Muqdisho marka maxaa keenaya dhibka muxuu yahay haddii qofka ilaa Soomaaliya on arrival baa lagu qaadan karaa fiisaha maxaa diidaya marka xagee caqabadaas ka imaanaysaa diyaaradu maxay u sameeyaan arrinta waxba isbedelay aad ulama socdaan aniga arrintaas safir soo dhawo waa mahadsantahay mawlid waana kaaga mahadcelinaa dhiirigelinta iyo muxuu ahaaye inaad iyo talooyinka badan oo na siisay waana waxa loo baahan yahay in muxuu ahaaye mar kasta qofka Soomaaliga ah oo calankiisii maanta uu ka maaragtay babanayo Central London uu arko uu yiraahdo muxuu ahaaye war meeshaan sideen kusoo gaareen iga rumayso dhalinyarada ugu badan oo muxuu ahaaye aad noogu timaado oo u xiisaysa waa dhalinyarada aan Soomaaliya inta badan arkin oo ama qurbaha ku dhashay ama iyagoo yar la geeyey oo markay arkaan calanka la yiraahdo intaan waa qayb ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliya inta safaaradda ay ku fadhiso runtii aad ayay ugu farxaan sawirro ka qaataan oo geliyaan tiktokyada iyo meelaha kale social media waana run waa fiican tahay in la sameeyo medium of communication arrintan anaga arrin aan filaynay maaragtay ma ahayn waxaan la leeyahay safaaradda horta furisteeda lugaha loo istaajiyo hadda safarkaygan xamar primarily arrinta fiisada ma ahayn waa kamid oo wuxuu kamid ahaa qayb laakiin primarily arrintan usoo baxay waxay ahayd in aan sameyno servisyadii naga dhinnaa sida immigrationka haddii safaaradda systemka immigrationka iyo fiisaha nahaysan lahayn arrinta inta badan wayba xalismi lahayd ba qofka dadka waxaan u samayn lahayn viisaan u samayn lahayn markiiba horuu kasoo bixi lahaa qofka waana faafin lahayn marka safaaradda hadda weli website umaana dhisin waxaan rabnaa website inaan u dhisno miidiyaha waa kamid waxyaalaha sababta nooga soo muuqanayno aniga iyo cabdi muuse hadda igula jira halkan oo muxuu ahay qunsul ku-xigeenka waxa waaye in aan dadka meelahan oo kale dadka ku jira waxyigelintaas aan sameyno oon dadka u fasiro waxaa jira caqabad ma kala kulanay haa waa kala kulanay waa taqaanaa suuqa lagu galaa war xunaa lagu gelinaa safaaradda isbaara dhigataa lagu leeyahay waxyaalo fara badan lagaa sheegaa laakiin annaga dad mas-uuliin aan nahay mas-uulkana qofka ah kama xishooda waajibkiisa inuu qabto markaad ogtahay adiga inaad wax wanaaga aad samaynayso oo ah qof muxuu ahaye Heathrow ama Gatwick taagan oo intuu kusoo waxa ku yiraahdo intaas carruur wataa walaalo diyaaradda waa laga reebay ilaa adigoo xafiiska fadhiya isla markaa